in aan ka hadlo saddex qodob. ta koobaad oo ah inaan ka tala bixiyo dhibaatada ka timid ama ka iman karta xariga Saleebaan Maxamuud, in aan dadka ugu baaqo in ay u codeeyaan dastuurka, iyo inaan xukuumadda ku baraarujiyo in ay la timaado xukuumaddu dhaqan ka hufan kan hadda ay ku dhaqanto, in ay xukuumaddu la timaado habdhaqan siyaasadeed oo ka hufan kan hadda ay ku socoto. ujeedada shirkan aan jaraa'idda ku yeedhay waa saddexdaa qodob. waa ta koobaade, hubaal weeyi in xarigga Saleebaan Maxamuud wax kaga xumaada mooyaane aanay waxba ugu hagaagayn Somaliland. waxaan filayaa in Saleebaan shakhsi ahaan magac iyo sharaf ugu korodha mooyaane aanu xariggani marnaba haybadiisa siyaasadeed waxba u dhimay. muran kama joogo Somaliland qaran ahaan durba inay hantaaqooyin siyaasadeed ka soo gaadheen arrintan iyada ah. waxa dhaawac inoogu filan dhawaaqii kooxda carta ay dhexdeenna kaga faa'iidaysanayeen. waxa warwarkeeda leh dareenka ka dhashay hadalladii ay isweydaarsadeen madaxweynaha iyo salaadiintu. guud ahaan waxa habboon in arrinta halkeeda lagu qabto oo laga tala galo. Saleebaan oo ah siyaasi miisaan culus ku leh dalkan waxaa lagu eedeeyey inuu la kulmay madaxweynaha Jabuuti. horta Somaliland iyo Jabuuti waa laba shacbi oo walaalo ah oo is-hurran. sideedabana ninka odayga ah ee hogaamiyaha ah ee talagalka ah marka uu xil hayo iyo marka aanu xil dawladeed haynin labadaba si isku mid ah ayuu danta ummaddiisa ugu adeegaa. mar walba iyo meel walba uu joogana waa geed jooge difaacaya danta guud ee qarankiisa. ninka xilka oo keliya ku shaqeeya ma aha hogaamiye ee waa danayste. sidaasi ayay siyaasiyiinta Somaliland ee Saleebaan ka mid yahay ay u guntan yihiin taabagelinta qarannimada Somaliland. waxa nasiib darro ah in aynu taa isla garan weyno ama damac shakhsiyihi in hilmaansiyo. waxa iyaduna curfi caalamka oo dhan laga dhaqmo ah in marka ay xukuumaduhu isafgaran waayaan ay xiriirkooda u adeegsadaan siyaasiyiinta aan xilka haynin si loo helo waanwaaniyo isafgarasho. midda kale, haddii ay kulmeen madaxweynaha Jabuuti iyo Saleebaan waa hubaal inuu mid waliba difaacayay danta qarankiisa. markaa waa inagu lafjab Somaliland ahaan in odaygeenii aynu ka dhigno nin liita oo la adeegsaday. waxa dhacdo xun ah oo mustaqbalkeena iyo mudakarka dalkan in ku noqon doonta arrintaa iyada ah. anigu waxaan doonayay ama fikirkaygu ahaa in madaxda Somaliland gaar ahaan ninka noqda ee gaadha heer madaxweyne uu ku dambeeyo sharafta iyo haybaddii uu leeyahay Mandela iyo Nyerere, oo aanu noqonin ama madaxdeenu aanay marin jidka ay mareen Suharto, Pinochet Chile iyo Milosevic. dhacdadani waxay inagu sii riixaysaa dhinaca ay mareen kuwa dambe ee Pinochet iyo Milosevic. haddaba iyadoo laga duulayo aragtida danta Somaliland, iyadoo laga talinayo aayaha dalkeena, iyada oo aynu doonayno in aynaan ku dambaynin sidii hogaamiyaashii shuuciga ee midowgii Sovieti ee midba kii ka dambeeyey sharaf jabiyey oo fiirso Stalin iyo Khrushchev.
waxay dantu ku jirtaa in xukuumaddu isa saxdo gaar ahaan madaxweynuhu oo uu saxo qaladkaa dhacay salebaana deg deg loo sii deeyo kadibna si wada jira loo bogsiiyo dildilaaca siyaasadeed ee arrintaasi keentay taasi waa iga talo aan u jeedinaya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa haddii taa intaan ku dhaafo ummadda waxaan ugu baaqayaa in ay u codeeyaan dastuurka oo maalmaha fooda nagu soo haya ay dhici doonta codbixintiisu gaar ahaan dadka wax ka tabanaya dawladda xukuumadda cigaal waxaan ugu baaqayaa in ay ka hormariyaan qarannimada tabashada laga tabanayo dawladda xukuumadda cigaal ta saddexaad xukuumadda waxaan leeyahay nasiib darro si guracan ayaad u adeegsateen ololihii diyaargarowga codbixinta heer qaran waxaa idinka muuqata haddaad tihiin ragga xukuumadda ku jira in idinkoo ka baqaya loolanka siyaasadeed ee iman doona aada ummadda jaha habaabiseen oo aada u tusteen ururada mucaaridka ah ee soo kacaya curdinka in ay yihiin kuwa u daran ummadda ama ka soo horjeeda dastuurka iyo danahooda taas oo aan jirin intaan ka warqabo waxaa laga wada hadlay oo laydinku dhaliilay oo laydinkala dooday u diyaargarowga codbixinta dastuurka marnaba ma jirin cid aan aniga ogaantay ciddiidan dastuurka waxaa habboonayd in aanay dhicin in wasiirradeenna lagu afdubo dalka gudihiisa oo aynu u gurman kari weyno waxaa habboonayd in aan wasiirradeennu ka jawaabi kari waayin iyaga oo jooga gobol ka mid a somalilan in gobolkaa cod laga qaadayo in kale sidii ka dhacday shalay b b c arrimaha u baahan inay dawladdu kumbatid ay ka howl qabato ragga dawladda dhaliilaana ay talo uga soo jeedinayeen ee aad diideen waa kuwa inoo muuqda maanta xukuumadda waxaa laga rabaa inay dalkoo dhan ka qaaddo codbixinta nabadgelyadana sugto waan dhibaato ka dhici xukuumadda waxaa laga sugayaa dalka oo dhan oo loo qaado codbixinta ummadda somalilandna waxaan leeyahay taa ha lagu taageero marka ay jirka toosan mara dardaarankayga ugu dambeeya xukuumaddu waxaan leeyahay dalkan somaliland kama suurtowdo nidna waanu ku riyoon in laysugu cagajugleeyo la isku caburiyo ama laysku muquunin karo kama dhici karto dalka hadday cidi taa u suurto gelayso horaa loo soo arkay waayo joog baynu ahayno waynu wada noolayn tii taa ku dhaqantay halkay la martay waxaa iga tala ah sokeeyanimoa in xukuumaddu habdhaqankayga siyaasadeed ee hadda mid ka hufan la timaado waana dhameeyo asalamu calaykum waraxmatullah موسى ونوغنا اسمع العمر كيف إنه يهي من قطة رجع السومالي لا مرجحة ولا شعري طبعا والله شعري ولا لا لكن هديه ومحان كلها سلام ويضو أنه أغنى هي وحيابي وكوك عي اسمع العمر كيف إلا هدروا كجروا هديه أي سياسيين تمثلوا لي عن حل كعين أي لا سو قالان ديل خلي miyaanay taasi markaa ku ahayn qaranka somaliland lafjab ma hayno dhiil somaliland ka dhinaca oo saleebaan la soo galay ismaaciil cumar geele google baan ku wada fadhinaa waan iska warhaynaa sida wuxuu soo dhaceena waxaan isleeyahay xog dhan baad ka haysaa haddii ay dhacdo aniga iyo adiga oo weynaba iyo saleebaan iyo cigaal nin qarannimada soomaalida wax kulleeda ku kaca waa dambiile وانا انت لبادي laga qaado laakiin ma waa kulmeen waana laba noo kulmi kara maxaa diiday inuu salaam danteena ka hadlay Djibouti danteena si adag uga hadlay iyo inuu sideeta uga hadlay cadeynay ila warkoona gaar weyn iska horeynaa musaadii cad maxkamadda loo keenaya salaam hadii ay ku cadaato ma loo oran karaa warag hadalkii warmacdo ka yeeray magaalada Cergaab ee sanad maabuud bay daba socdaan inay xaqiiqo tahay marka adigu laftigaagu اسماعيل عمر قال له والله نكرا وما سمعت حق والله ما نوقنا هذا قوا ان عمر قال له iyo dawladda Djibouti hada mooyaa ayna wax kale aanay inoo furay موسى sug dagaal uu ka soo dalay geeska Afrika naga Djibouti dagaal isku muqoran karo Djibouti way inuu ognahay qarnimadeena ay diidantii waa dhab godob ku tirsanana laakiin waxa way garteen daaf baynu ugu leeyahay haddayna soo gardaraysto halkeed
iyadana waxaanu kala tagnay saasoo kale caqliga keento laakiin laba dawladu iyagoo cola ayay madaxda kulantaa nin walba dantiisu daafacda yaa ii xaqiijinaya ee maxaa xaqiijinada ku haysaa inuu Salebaan nin liito oo Cumar galatiisa yara ahaa iyo inuu teena ku dagaalamay arrin kale lahayaa waxa la leeyahay markii laga soo kiciyay 99 xeerta Salebaan gal dhiilkii laga soo reeyay lafteeda wax ku lahaa waqtiga wax la kulmay Ismaaciil Bargile taa maxaa ka waraysaa sagaal iyo sagaashan markii 99 degree xeerta Salebaan gal wuxuu joogay Djibouti Ismaaciil Cumar Gile waa kulmeen dabeedna halkan uu la soo hadlay dabeedna markaa waxa weeye wuxuu yiri waa in ciidamada beelaha laga raraa meesha arrinkaasi dabeedna dhiil isaga dantiisa abu ku galay baa leeyahay taa ma ka waraysaa markaa wasiir baad ahayd nacam taa waxaan u malaynayaa aniga cigaal cidin ugu xogaansana arrinta maalintaas Saleebaanna shaqo ku mulahay go'aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya cigaal baa gaaray una hawl galay anna ninkii ku labaad ee arrinta la fulinay la ogaabaan ahaa go'aan umadeed oo dawlad baa laga soo reebay inta ma umanaan maqal waana wax imka igu horeeyo waxa sheegtay mana jirtaan ku leeyahay oo dawladdu marnaba arrinta bariga kamay qaadin talcaankaas xukuumaddu waxay ku doodeen Salebaan uu la kulmay Ismaaciil Cumar Gile oo kala hadlay arrimo qaran jab ku ah qaranka Soomaaliland adiguna waxa leedahay uu la kulmay way ku daafacaysaa Salebaan hadda maxaad xog ka haysaa kulankii Ismaaciil iyo Salebaan dhex maray waxay ka wada hadleen ama Salebaan ma ka dooday inay kulmeen dawladdeenu baa inoo sheegtay meel kale oo inoo sheegtay male laakiin waxaan qiyaasayaa haddii Salebaan uu Djibouti tegey ama ninka oo siyaasi weyn oo Soomaaliland inay dawladda Djibouti isarkayaan waa u caalamka oo dhan taa mal ahaan baan ku talagelaya waxa kale oo aan ku talagelayaa in ninka Soomaaliland heerka Salebaan oo kale markay Djibouti iska soo fadhiistaan in uu Djibouti waxa laga tabanayo waxa nagu sameysay oo si adag u gala garamayo danteena daafacaya ee aanu noqonayn mid danteena ka hor imanay taas waa ku talagal guud ciidana ma soo bandhigay Salebaan waxa uu ku lagu eedeynayo oo la hayo laakiin anigu waxaan hubaa in aan taal helin waraaqo degmeysa ma hayna way leedahay dawladda ay ku doodaysaa haddii taal ay ka warmayso haddii la helaan kuri Salebaan iyo nin kale walba wax qaranka ka hor imanaya waa dambiile kale dadka xukuumaddu waxay saaray xukuumadda loo doortay in arrimaha siyaasadda noocaas oo kale in iyadu gasho Salebaan intaynu gelin horta dawladdeena ma la hadlin kala xiriir arrintaa haddaad xog haysaa ma taa ka jawaab karo ma hubo in kala hadlayaan kale ma ogi مسلم كانوا سلام تجين مسلوق إذا إن تبوتوا توا ويكون هذا ما ميا نيك سياسي طلع مركب ولا كل من سياسية وحكاها اللي كل وسياسي ده نيك معارف كده نقولنا هي مركب حد يتشر ولا كل من نيك كله اللي واحد وحيد دنتي ساعة يوم بمركب نيكاس ولا لك كده جوري سكروا مركب ما وركرنا وحياة شيء صح حكومة دور ما أورك هرتا هذين سياسية وحيل كلام قاني يستوى حيل كدونية واحد أنتي ساو كهر مريض أنت قرك أما ضل كلا صاحب هذا ما عدوها هذا أو عند الكيس هاين وأذيك سدا أمورها جديدة وخاي سياسي ما وفرمله بوتاس وقاعد يقول ما كانك تاكو عيا ما هنك ولا سياسي خاصوا تنايست إنك عليه هلك وين استقام شخصية السليمان ما هتو تاسكر له أيس إنك إنه عبت إنك مشاري تلو دورين مدحوينها إهر كانوا جد سليمان وحده سووا شقين إلى الحين كنت كسر ودم بيس ولا أنت لا تقول بالله يقان نو البالله يقان تيميز أنا waxaan qadarinaya aqoonta aan Salebaan leeyahay iyo kalsoonida ku qaba inaan wax xaas garo ku kici karin haday ay sarkeen danta Soomaaliland difaacideeda oo ka hadlo موسى عبدالرحمن أحمد علي مدحوينه loo doortay Salebaan isaga weli lama dooran madaxweyne loo doortay dalka laba sano ka talinayay waan ognahay halku maanta joogo waa la ogyahay adduunka raba ka dhacdaa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Axmed Cali markii isagu uu ka bareeray ayaan been dambe ku qaad intuu inala joogay iyo inta kale qadarinteeda iyo sharafteeda marka ma hayno maanta Salebaan tiyo kale ka bareeray laba la isku kari karama waxyaaba qaar xog rasmi ah waxaad moodaa inaad ka hayn ma la oran karo ku degdegshadii oo ku degdegtay shirkan jaraayid qabashadiisa iyo dhaliisha arrinta inta ka hor maxkamaddu ay cadeynaysaa arrinta ma yakuna degdegin ta maxkamadda lafteeda ayaan ka shaafeeya maanta madaxweyneenu inta goor oo garsoorkeena dhaleelay waad ogtay mana doonayaan maxkamadaha ka sii tagaala iyo habkooda waxaan ku leeyahay maxkamadda lagu marmarsoonay ayaan lagu heshiinin go'aankeeda ama aan lagu kalsoonaynba oo loo arkaya inuu siyaasiyan loo adeegsan karo maanta xaqiijin maxaad adigu ka haysaa xataa hintis ah ee Salebaan inuu arrin qaranka u dan ah uu kala hadlayay aad ku difaacaysaa adigu maanta musuq
dee waxaan ku idhi horta waxbay noo kala qarsoona innaga iyo geeska afrika innaga jabuuti iyo madaxtooyada inay soo dogbeelma cid dokumenti iyo waraaqa iyo shir ofashal ma ahayn rag madaqadiyan baa hano lahaa anigu kuma lihi waxa waxaas ku hadleen ma haya rekoorkii ay ku hadleen laakiin waxaan ku talagelayaa shakhsiyadda iyo taan cigaal hay marsan haya saan cigaal markuu la hadlaayo dawladaha anigu kalsoon dantayda ka hadlaayo haddaan dhalinaya aan leeyahay gaftee aanan odhan khaayin baad ayuun baan kana kalsoonada kala qabo saan ugu qabo madaxweyne ku-xigeenka saan ugu qabo ninka golaha guurtiga taasoo qiimahaas oo kale yaro qaba daayin saleebaan muuse waxaan ku weydiiyey saleebaan beryahan uu ka dhex maqnaa uu ka maqnaa saaxadda siyaasadda weliba snmdii kooxdiina dib habeynta dhaqdhaqaaqiisa kama muuqanin marka adigu istaankiisa siyaasadeed hadda maxaad ku cabiri karaysaa istaanka local politicska siyaasaddeena gudaha iyo manufarka uu sameynaya anugu warma hayo saa oo kala maqlaaba anaga maqlaanaan u wada xil lahayn waxaan ka hadlayaa personality qadarin shakhsiyad siyaasiya oo somaliland ayaan ka hadlaya muuse ma la odhan karaa koox ahaan kun baad u hadlaysaa ee arrin kaloo meesha tago maanta xaqiiqa ah aad ku hadlaysa ma jirto ma la odhan karaa lama odhan kara somaliland ahaan baan u hadlaya sidaan madaxda kale somaliland ba haddii gardarra ku dhacdo daafici lahaa in baan u daafacaya gardarra xukuumadda kala dib baan u arka muuse waxaa jirtay wuxuu la kulmay ismaaciil cumar geli kasoko sida la sheegayay cabdiraxmaan boorro ah ninkii ganacsadaha ee dawladda somaliland khilaaf ku dhex maray markaas saleebaan miyuu ku jira arrimo tijaaradda iyo ganacsiga la xidhiidha arrimaha inkaas ma jiraan sideeda waxay nagu ceeba in dawladdeenu inay yaro ganacsadaa ka cabato boqol jeer horenu ka caban aabay nagu sharaf jab qaran dhan baynu nahay taa aad sugta aad baanu diidana waa ta labaad dee dadku waana seeqaan waana kulmi karaa ma odhan kara way kulmeenaya midna ka qiimo imala hadday kurmaan ina boole saleebaanna intuu noolaa muu gelin baa cumar waa nin siyaasad ku jira imkana siyaasad u xigtay marka aniga kulanka ina boore qiimo iima samaynayo dawladdeennana waa ku ceeb inay boore soo qaadqaada iyo inay arrin yaroo ganacsiya horta iyagoo soo maro ma caddayn karo ma ku qanacsantiin haddii maxkamad la soo istaago wixii kasoo waxaan tuso inkastoon ixtiraamayo personal ragga xaakimada ama nin kastoo gar qaadayo bini aadmiga inuu dee nin xaqiisa iyo waddadiisa maran yahay haddana walaaca uu ka muujiyay madaxweynahan iyo xukuumadda in badan garsoorka inteeda in laga ka muujinaya